السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا على متانا لمان dadka dhageysta waa salaamantiin. Waxaan idin soo gudbinayaa joog yar oo Ramadaanka aan ku talagalay intaana bilaabin CK family taageerada ay taageertay oo janalkayga soo dhaweysay aad iyo aad aan kugu mahadcelinayaa. Ana hadda laga bilaabo ama baraf CK family haddaan usoo noqdo arrinta haweeneyda waxaan joog ka sameynayaa Donald Trump. Donald Trump waa madaxweynaha ugu dambaysan Mareykanka. dadka dhan waa isku raaceen. dadka dhageysta oo taageerada waa dad asaga lamid ah. maalin weydii soo baxay wuxuu yiri mataqaana bleach iyo waxyaalaha guryaha lagu nadiifiyo iyo haddii qofka la cabsiyo ama injection lagu sameeyo live lagu shido coronavirus bay dilaysaa. So supposing we hit the body with a tremendous whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. Right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. So we'll see. But the whole. hadda bleach ku aragteen Clorox ku aragteen haddii dhar kale lagu shubo say u gelayso waa aragteen haddii gacanta ku shubatay faraaga say u gelayso waa aragteen marka waxaan u bixinaynaa Donald Trump meesha laga dhigay asaga naasadka ku bixiyay asaga waxaan u bixinaynaa Mr. Clorox magacaas ayaan anigu u bixiyay. waxaa kaloo la taliya nin la yidhaahdo Rudy Giuliani oo ka ahaan jiray mayor mataqaanaa New York. waa nin maafadii Talyaaniga ku jiray wuxuu ku leeyahay dadka mataqaanaa buurbuuran dadka kasarka qaba dadka mataqaanaa wadna xanuunka qaba ayagu waa dhimanaya coronavirus marka mataqaanaa big deal maaha. coronavirus Mareykanka 54,000 oo qof ay ku dishay haddii la isku daro intii dagaal Mareykanku galay dagaalka koowaad dagaalka labaad kii Vietnam kii mataqaanaa Korea kii Gulf War kii haddii la isku daro inta Mareykanka dhimatay coronaviruska ka badan. marka dadkan Donald Trump wuxuu ku leeyahay aniga mataqaanaa dhakhtar maahi scientist maahi laakiin aqligayga ayaa wuxuu tusayaa in bleach la cabi karo. mar haddaan dhakhtar ahayn maxaad isku sheegaysaa? Mareykan dadka adduunyada ugu cilmi badan baa degan dadka ugu dabaalsan waa degan yihiin. marka ninkan yuusan layn boodkiisu wardaya wuxuu ka hadlaya climate change. waa ninka ma hadda ka hor yiri markii hurricane-ka uu ku dhacay Florida waa ninka yiri Alabama maraya ma socdo Alabama Gulf of Mexico ku taala badweynta kuma taala marka Atlantic Ocean. marka ninkan wax ma dhageysto wax ma maqlo adinka maskaxdiisa isku dhacyaaday laakiin dad baa ku shaqaysanaya. Soomaaliyeed waxaan leeyahay Donald Trump dhageysanid wadaadadiina dhageysta aqligana dhageysta. Donald Trump waxaan hubaa islaamaha ariga ku raacanaya Soomaaliya ayaa ka caqli badan kana cilmi badan. marka wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dadka waxaan ku bogaadinayaa inay videoga fiirsadaan inay wixii comments ay soo diraan inay mataqaanaa subscribe saaraan. bal aadam aan wax waa qaldi karaa waxa ay tiraahdiin iga saxdiina waan rajeynaya waxaan jeclahay inaad ku enjoy garaysiin videohayga. shaqo badan baan geliyay wax badan baan ku fikiray saan adiga in raali geliyo in ka qosliyo awal waxaan imaan jiray mataqaanaa waa adag waa garanaysiin meel aan comedy stand u barta aniga oo dad badan ku qoslayaan energy ku siinayaan laakiin kaliya markaan gelinaysid waa adagta waa garoon stadium garoon lagu ciyaarayo kale oo vans lahayn ciyaartooyda isku wadis. marka you feel it waxaan ka wado waa mahadsantihiin. mar labaad comments isoo geliya subscribe saara waa mahadsantihiin.